بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن أخيارته وديقة داونيسا كسر وهذا ورادك سوماليدا كودي ودن بيوضا هذا أنا كلك داوتان بيجكن مقالورات كنتو سعوني أدوية بيد واحد مقلد دونتان معلومات كسابسن جامعات عربتو ديجنين علوس قدرتي سوماليلان كدي قرشها سوماليلان أي قرشين الصهاينة قدس الله هيستا أي كفرته السفارة intaan ku soo gudbin qodobkaasi oo faahfaahsan fadlan maqaalka leega saar oo share garay oo geeyay doobaan halka adiga daawanaysaan waa page-ka wariye wacane aynu ku bilownaa saaxiibayaal xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Abu Ugayd ayaa bayaan culus oo soo saaray ayaa wuxuu uga digay Somaliland inay safaarad ka furato Qudus la haysto ay xoog ku hayso Yahuudda Israa'iil ee dhulka reer Falastiin xilli xukuumadda Iran ay ku dhawaaqday inay safaarad ka furanayso magaaladaas taasoo oo ka dhigan baa la yiri inay caasimadda Qudus ee reer Falastiin u aqoonsatay dhul ay leedahay Yahuudda Israa'iil fadlan maqaalka leega saaro share garay Abu Ugayd ayaa sidoo kale arintaasi ku tilmaamay barmadow inay ku noqon doonto maamulka Somaliland oo hore uga helay aqoonsi been ah Yahuudda Israa'iil sidoo kale xogayaha jaamacadda Carabta ayaa wuxuu uga digay khatarta ka dhalan karta faragelinta Yahuudda Israa'iil ay ku hayso Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wuxuuna cambaariyay tallaabooyinka ay qaadayso Yahuudda Israa'iil ee dhanka maamulka Somaliland oo ka tirsan dhulweynaha Soomaaliya waxa kale oo intaasi uu ku daray in ay waajib tahay in aan lagu xadgudbin midnimada iyo wadajirka dhuleed ee ummadda Soomaaliyeed wuxuuna soo jeediyay in dalalka caalamku ay meel fog ka taagan yihiin faragelintaas sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee Yahuudda Israa'iil ayaa haatan iyaduna dhankeeda qorsheynaysa inay safaarad ka furato magaalada caasimadda ee Hargeysa ee dhulka Soomaaliya ka tirsan sidoo kale wuxuu shaaciyay sida uu shaaciyay Maxamed Xaaji oo ah safiirka cusub ee Somaliland ay u soo magacowday dhulka Israa'iil waa safiirka cusub ee Somaliland u qaabilsan andhaha Yahuudda Israa'iil saaxiibayaal sidoo kale wuxuu tallaabadaasi ku tilmaamay calaamad muujinaysa saaxiibtinimada sii xoogaysanaysa iyo ixtiraamka waa wasiirkan iyo wadajirka iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhaxeeya labada dhinac oo ula jeeda maamulka Somaliland iyo Yahuudda Israa'iil go'aankan ayaa imaanaya bilo kadib markii Yahuudda Israa'iil ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay Somaliland u aqoonsatay dal madax bannaan tallaabadaas oo Yahuudda Israa'iil ay ka dhigaysa dalkii ugu horeeyay ee caalamka ka tirsan inkastoo ay tahay mid go'doonsan oo iyadoo 50-50 ah inay dal rasmi ah u aqoonsatay maamulka Somaliland oo haatan tan iyo 1991 raadinayay aqoonsi caalami ah markii Yahuudda Israa'iil oo waxba ahayn laga soo reebana dal imika aqoonsaday gabi ahaan caalamka kamid ah inuu jirin waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal anigoo wariye wacana maan oranay fadlan maqaalka leega saar oo share garay halka adiga daawanaysaan wali waa page-ka wariye wacane nabad